gaalkacyo waa magaalo madaxdii gobolka Mudug oo ku sugnaa sohodintiisu ceel buur ceel dheer iyo meesha la yiraahdo Matabaan iyo meesha la yiraaho Dhinawda intaa u dhaxle xaqana ilaa Burtinle dadka deegaankan deganaa wuxuu ahaa dadkan hadda idin la jooga oo gobolka Mudug dhinacaana buu ahaa waxaana ka soo guuray ganacsatadayadu Hobyo ceel buur xarar dheer ceel huur intaa oo magaalada anaga aasnay markaan ka soo guuray qoladan walaalaha ayaa way naga daba yimaadeen waxaan wax ku kala bedelan jiray meel la yiraahdo warga culguule la yiraahdo annagoo sidaa wax u kala qaadana baanu islaynay haddana waxaa noo yimid Talyaanigii sohdin buu noo sameeyay waxaa noo yimid Ingiriiskii isla ayadii buu noo sameeyay sidii haddaay loo sheegayay 93kii baanu anagu xamar tagnay waxaanu raadinay in la helo walaalnimo iyo isa soo noqod iyo wada noolaansho iyo Soomaalinimo halkaan ku soo celin laba habeen intayn joogin bay qaniyadii nagu bilaabeen iyo dilka iyagoo sidii noolaynu yaa dawladda Puntland la dhiso waa loogu yeero waa naga diideen waxay u diideen inaanu wada noolaan karin ama siyaasad kale oo xoog bandi gadaal ka jiidaysa iyo Muqdisho way u diideen sidaa markay tahay gaalkacyo waxay kaga bedelantaa Soomaaliya inteeda kale oo ula mid tahay sida Kashmir Qubris iyo Al-Qudus bay la mid tahay marka sidaas ay kaga waduwanaanaysaa xuduudaha kale iyo sohdimaha xalinteedu marka waxay noqonaysaa in la raaco sohdimihii aanu lahayn oo aan ka soo gudbeen markii xorriyadda la qaatay rabitaanka dadka iyaga ay kaga soo gudbeen sohdintii hore oo aanu lahayn iyadoo la raacayo waxaad nooga gudbinaysaan baarlamaanka cusub iyo dawladda federaalka iyo idinta aqoontiina intaba inaanaan wada noolaan karin qolo walbana xuduudkeedii meesheedii lagu cesha aanu kala hayn waxaa liisee loogu wada noolaan karaa gaalkacyo laakiin waxaa jiro waxaa leeyihi nin islaantaada doonaya gabadhaadu ma qanacso nin dhulku ordahaya iyo nin walaalnimo iyo wada noolaasho iyo nabad raba iyo nin qori iyo isku sita sabarad iyo garweyn dhibteeday leedahay xoogaa markaan dib ugu laabto 93 heshiiskii wuxuu ahaa hubkoodu inuusan soo dhaafi karin hilmo iyagoo maxaan ku yiraahdaa shacab inay yimaadaan saasaan ku keenay waxaan ka soo kaxaynay dagaari iyo 3 xiglo baanu ka soo wadno waa keenay wada noolaashihii iyo Soomaalinimadii baan raadinay siday ku yimaadeen saasay ahay annagu waxaan rabnaa Soomaalinimo waxaan rabnaa wada noolaasho see loo wada noolaan karaa bas aashta waxa lagu wada noolaan karaa dadkan waa wada noolaan jiray waa wada degaan buu lahaan jiray in degaankii la kala joogo waa la isdilay waa la isdhacay waa la isgubay waxa la yiri waxa la isugu darahana heshiiyeen miyay suuroobaysaa ma suuroobayso hal maalin ama maqal oo dawladda federaalka ah hal wafti ay dirtay ama hal guddi ay dirtay oo dib heshiisiin lagu sameeyay mushkiladda hadda jirta waxa weey oo nahaysataa wixii anagu aan isu jilcinay oo nabadda ahayd oo nir war laga samro oo waxa la hagaajiyo waxay nagu keentay in ay nagu dhiiradaan oo anagii nala ku dhiirado marka taana nabad baan rabnaa anagu in la wada noolaadaan rabnaa nabadda aan rabnaana waxa weeye gurigoodii inay yaqaaneen annana kaayagii aan naqaan waa wada degaynaa waa wada daaqaynaa biyaha way isu doonanaynaa